السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمة مالين wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena wargeys Yurub ugu caansan ciwaanada sameynaya sidoo kale qodobada sports ugu dambeeyay fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar waxaa marka koowaad ku bilaabanaa sheekooyinka tartanka UEFA Nations League kadib markii wiilka lagu magacaabo Ansu Fati uu sameeyay taariikh weyn sidoo kale tan ciwaanada kubadda cagta uu qaadanayo sidoo kale Jarmalkan waxay ku dhiban yihiin tartanka UEFA Nations League kadib markii xalab barbardhac ay galeen iyo kulamada caawala ciyaar doonaan fiirin doonaa bal marka koowaad ku bilaabno Luis Enrique xulkiisa Spain way baashaaleen kadib markii 4 gool ay ku dhufteen Ukraine kulan xiiso badnaa gudaha Spain lagu ciyaaray ciyaartan ciwaanada qaatay Ansu Fati oo dabcan noqon taariikhan Isbaanishka u dhalantii xulkan gool u dhasho asagoo rekoorkaas sameeyay sidoo kale xalay waxay wada habeen wiilka habeen uusan hilmaami karin wiilkan maadaama goolkii koowaad ba asiga uu keenay goolkulaad ugu gal ciyaarta socota 4 daqiiqo waxaa dabcan goolkaas shabaq ku qabsaday kabtanka Real Madrid Sergio Ramos iyo kabtanka xulka Spain Ramos ayaa sidoo kale ciyaarta labaasta kadibna Ansu Fati daqiiqadii saddexaad wuxuu sameeyay skoorkii laga filayay maadaama uu gool shabaq ku qabsaday kubaddu asiga soo sameystay ugu dambeyntii ciyaarta waxaa soo idleeyay ninka lagu magacaabo Ferran Torres oo daqiiqadii 85 shabaq gaaray waana saxiix cusub ee kooxda Manchester City sidoo kale tan wiilka Manchester City ninka lagu magacaabo Eric Garcia kulankiisa ugu horeeyay ciyaar taariikhan Isbaanish 19 jirkan asigoo qaybtii labaad ciyaarta bedel ku soo galay marka xalay Isbaanishka ciwaano kala duwan ay sameeyeen guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay tartanka UEFA Nations League ee groupka afraad haatan groupkooda inay hogaaminayaan maadaama 4 dhibcood ay leeyihiin sidoo kale daawadayaasha markaan u soo laaban Ansu Fati waxyaabaha uu sameeyay ninkan waxay kaga dhigantay haatan taariikh ahaan inuu noqday ninkii u dhalantii Isbaanishka u dhashay sababta wuxuu jiray xalay 17 sano 311 maalmood wuxuu rekoorka kala wareegay dabcan 95 sano iskoor yaalay wuxuuna kala wareegay halyagii Isbaanishka ninka lagu magacaabo Joan Arisguan oo sanadii 1925 Spain kulan ila ciyaareen xulka Switzerland hat-trick ama saddex dhashay markaasna wuxuu jiray Joan ninka lagu magacaabo Joan Arisguan da ahaan 18 sano iyo 344 maalmood sadarteed ninka lagu magacaabo Ansu Fati oo Barcelona weerar kaga ciyaaro ayaa rekoorkan la wareegay Ansu Fati xil ciyaareedkan ama 12 bilood ugu dambeeyay wuxuu sameeyay 3 iskoor kala duwan mar wuxuu noqday taariikhan ninka ugu dhalantay Barcelona gool dhasho wuxuu kale noqday taariikhan ciyaaryahanka ugu dhalantay Champions League gool ka dhaliyo haddana wuxuu noqday taariikhan ciyaaryahanka ugu dhalantay Spain gool dhasho marka wuxuu ku jira waqti fiican dhinaca kale Sergio Ramos sigan gool ku dhaliyo waxay kaga dhigantay labada gool 15 kulan ugu dambeysay xulka Spain u ciyaar haatan wuxuu dhaliyay 10 gool wadar ahaan ninkan wuxuu marazon 4 jirka ah 23 gool xulka Spain u dhashay wuxuuna ku jira waqtigiisa ugu fiican aan sii wadna sheekooyinka UEFA Nations League Jarmalka waxay la kulmeen barbardhac hal har ila galeen xulka Switzerland waxay ku groupiyeen Isbaanishka ciyaartan hal ku soo ila Jarmalka hogaanka waxa uu dhibay ilka Gundogan laakiin Joachim Löw wuxuu sheegay xulkiisa gool in aysan u baahnayn tartankan aysan ciyaari karin kadib markii xulka Switzerland ay soo laabteen qaybtii labaad ciyaaryahanka lagu magacaabo Vedmer ayaa barbardhac si Switzerland daqiiqadii 59 waxa lagu kala tagay hal haatan Jarmalka waxay kaga dhigantay laba kulan ciyaaran laba dhibcood ay leeyihiin groupkan waxay kaga jiraan kaalin saddexaad maadaama Ukraine oo laga badiyay ay ku jiraan kaalinta labaad saddex dhibcood ay leeyihiin Switzerland hal dhibcood ay haatan haystaan Jarmalka waxay kaga dhigantay UEFA Nations League ilaa iminka 6 kulan ciyaaran guul ma aysan gaarin koobkan 3 kulan laga badiyay iyo 3 kulan barbardhac galeen sadarta Joachim Löw wuxuu leeyahay koobkan waa ka habaaranahay waa inay isbedel sameeyna Jarmalka waxay kaga dhigantay tartanka inay sugan doonaan bisha dambe October kulamada la ciyaari doono kulankooda xigane waxay la ciyaari doonaan xulka Ukraine safar u yihiin halka sidoo kale tan Isbaanishka markii aan filino kulankooda xiga ay soo dhaweyn doonaan Switzerland waxaana la ciyaari doonaa Sabti taariikhda markay tahay 10 October sadarta jaraa'idada Yurub waxay leeyihiin Jarmalka waxay ka habaaran yihiin UEFA Nations League maadaama wali aysan koobkan guul ka gaarin waxayna ku jiraan xaalad aan wanaagsaneyn Joachim Löw xulka inuu iska dhiibo marabo maadaama in muddo uu hayo waxa muuqata la isbedel xoogan Jarmalka inuu u baahan lagu sameeyo ciyaartoy xuma Jarmalka ma hayso ciyaartoy tay wanaagsan haystaan kuwa way arag kuwa dhalinyaro kuwa dhexdhexaad ah laakiin waxa la systemka isbedel u baahan maadaama Joachim Löw muddo dheer xulkan hayo waxa la jooga waqtigu iska dhiibi lahay macalinkaana wali uu madax adeegaya oo shaqada inuu iska dhiibo marabo maadaama uu doonayo xagaaga dambe Jarmalka inuu hogaamiyo tartanka qaramada Yurub oo ay Jarmalka u soo bixin daawadayaasha qiimo badan kulamada kale caawila ciyaar doona UEFA Nations League markii aan fin League A groupkiisa koowaad kulan weyn oo la wada sugay caawa dhici doona waxaan iska hor imaan doonaan Holland iyo Talyaaniga ciyaartan waxay soo gali doontaa 9:45 habeenimo xilliga Geeska Afrika ama caawa 4 saac dhiman soo kale groupkan waxa ku jiraan Bosnia iyo Poland iska hor imaan doonaan kulan soo gali doona isla waqtigaas kale 9:45 habeenimo xilliga Geeska Afrika Holland kulankoodii koowaad waxay ka soo badiyeen Poland hal gool eber kaga badiyeen Talyaaniga kulankoodii koowaad barbardhac hal ay galeen marka caawa waxa waajib ku ah Talyaaniga inay guuleystaan haddii kale xaaladda ku sii adkaan doonta ogaada groupkan hal wadana laga rabaa semifinal u soo bixi doono sidoo kale Jarmalka iyo Spain hal wadana laga rabaa oo semifinal u soo baxay intaasna kala gudbina sheekooyinka UEFA Nations League aan israacsan sheekooyinka Spain maadaama aan ku bilaabnay ciwaanada Ansu Fati uu qaatay sheekooyinka Spain israacsan doona jaraa'id
jaraa'idada Isbaanishka markii aan fiirno coverka jaraa'idka Marca waxay siiyeen Ansu Fati scorekii uu sameeyay waxay leeyihiin Ansu Fati wuxuu noqday taariikh ahaan Isbaanishka ugu dhalinta abad gool dhaliyo 17 sano 351 maalmood wuxuu jabiyay leeyahay record dabcan ku dhawaad 100 sano jiray ama 95 sano jiray sidoo kale tan waxay leeyihiin wiilkan bandhigii uu sameeyay waxay ka dhigan tahay inuu noqon karo hogaamiyaha xulka Spain sidoo kale jaraa'idka caanka Marca waxay qodob ka soo qaateen Gareth Bale oo kooxda Real Madrid ku soo laabanay kadib markii uu dhameystay kulamadii uu ciyaaray xulka Wales tartanka UEFA Nations League asagii sadana wada fariisan doona ciyaaryahankan laba arin mid la weydiin doona hadii uu Bale u yahay kooxda inuu caawiyo Janis ala siin doona hadii uu san diyaar u ahayn waa la fasaxi doona kooxdii uu doono ku biiri karaa inkastoo qandaraaskiisa dabcan June 2022 uu ku egyahay dhinaca kale shabakada caanka markii aan firin AS ayagana waxay leeyihiin Ansu Fati waa dahabi u soo baxay Spain kaasi wax weyn ka caawin karo waxayna leeyihiin geesigan Isbaanishka waa helan Barcelona Spain asiga caawin karo sidoo kale shabakada caanka AS waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta Barcelona waxay wada hadal rasmi la bilaabeen Lautaro Martinez wakiilkiisa waxayna diyaar u yihiin ciyaaraanka inay soo qaataan kadib markii tababar Koeman uu dalbaday in ciyaaraankan loo soo gacan geliyo sidii uu u gali lahaa booska u banana Luis Suarez sidoo kale shabakada caanka AS waxay qodob ka soo qaateen ninka lagu magacaabo Gini Wijnaldum oo ay sheegeen inuu ku soo jeedo kooxda kubadda cagta Barcelona kadib markii Liverpool ay sheegteen lacag gaarayo 15 milyan oo pound ama 18 milyan oo euro waana lacag ay bixin karaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona shabakada Mundo Deportivo markii aan fiirino daawadayaasha qiimo badan waxay leeyihiin taariikh weyn Isbaanish ka dhacday Ansu Fati yaa sameeyay 17 sano 311 maalmood saas wuxuu ku noqday markuu goolka dhalinay xale wiilka ugu dhalantay taariikhan Isbaanish gool dhasho kulankii 4 gool eber kaga badan Ukraine Spain bandhig heer sare ay sameeyeen soo kale waxay qodob ka soo qaateen Mundo Deportivo macani Koeman oo haatan bilaabo tababarka kooxda Barcelona kooxdiisana waa weerar la'aan sababtoo ah wuxuu haystaa oo kaliya leeyahay ciyaartooyda kale ee Pedri Dembele Griezmann Messi Coutinho Ansu Fati iyo Trincao dhamaantood waxaa leeyahay weerar way ka ciyaari karaan laakiin number 9 toos ma haysto sababtoo ah Luis Suarez ka baxu dhahay haatan macalinka maamulka Barcelona wuxuu kaga fadhiyay inay soo gacan galiyaan Lautaro Martinez iyo soo kale ninka lagu magacaabo Memphis Depay hadii Lautaro Martinez la heli waayna in loo keeno Pierre-Emerick Aubameyang marka wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo Ronald Koeman suurtagal ma kooxda weerar la'aan ciyaarto waxaan u baahanay markay ugu yartay laba weeraryahan kooxda in lagu soo kordhiyo maamulka Barcelona marka waqti badan ma haystaan suuq u xirmi doona 6 October waxay ku qasbayeen suuq inay galaan oo ay macalinkan u keenaan weerar si dabcan systemkiisa u shaqeeyo Koeman haatan wuxuu haystaa oo kaliya laga dhawaajiyay ciyaartooy kubadda sameyn karaan oo number 10 ka ciyaari karaan laakiin aanan u badnayn number 9 ninka ciyaari kara si dabiici ah iyo kuwa garbaha ka ciyaara marka xilli ciyaareedka cusub 2020-2021 waxaa laga cabsi qabaa kooxda Barcelona ugu bilaawdo weerar la'aan oo dhanka weerarka Messi iyo dabcan Dembele iyo Griezmann ka ciyaari doonaan ama Ansu Fati laga faa'iideysan doono bal markaana tagna daawadayaasha ma badan gudaha Ingiriiska waxaan fiirin doonaa ciwaanada kala duwan jaraa'idada soo baxay macalinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ka hadlay wili kooxdiisa inaysan kaanay qaabka ku soo qaadanaya Jadon Sancho Ole wuxuu leeyahay soo kale waxaan iska dhaafnay Kai Havertz maadaama wuxuu leeyahay Kai Havertz kamid ah ciyaartooyda aan doonaynay laakiin baa Leverkusen lacagaha ee dalbadan 90 milyan oo pound awgeed waan iska dhaafnay ka dhawaajiyay balse macalinkan wuxuu leeyahay maamulka United waxaan ka dalban lahaa inay bixiyaan lacagaha 108 milyan oo pound Jadon Sancho dul dhigeen kooxda Borussia Dortmund Ole wuxuu leeyahay wili waxaan haysanaa bil nagu filan waan ku soo qaadan karnaa ciyaartooyda aan doonayno macalinkan wuxuu qartay kooxdiisa u baahan tahay ciyaartooy in lagu soo kordhiyo wuxuu leeyahay Chelsea lacagaha waa ay baxsheen oo suuqa ciyaartooy muhiim ah ka soo qaateen City Liverpool wuxuu leeyahay wili way awood badan yihiin marka wuxuu leeyahay si aan loolanka Premier League qayb kaga noqono waxaan u baahanahay Sancho kooxda in lagu soo kordhiyo iyo ciyaartooy kale in la keeno haddii aan si wadno sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qaybkeeda daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Ryan Fraser oo 26 jir wuxuu si bilaash ugu biiray kooxda Newcastle United asagoo ka soo tagay kooxda Bournemouth soo kale Newcastle waxay ka soo qaateen kooxda Bournemouth Colin Wilson kadib markii darab 20 milyan oo pound laga aqbalay sida Sky Sports ay soo daabacday labadan ciyaaryahan tijaabo caafimaad ka xigto inay Newcastle United ku biiraan daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa jira waxaa qaybkeeda jaraa'idada Ingiriiska soo daabacayaan kooxda Arsenal waxay ku hunguud helista ninka lagu magacaabo Philip Coutinho kadib markii uu qaatay go'aan inuu kooxda Barcelona sii joogo 28 jirkaan macallin Koeman u ballan qaaday door weyn inuu ku yeelan doono kooxda Barcelona kadib markii amaahdu ka soo laabtay sida shabakada Marca ay soo daabacayso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira ciwaanada soo baxay waxaa qayb ka kooxda kubadda cagta West Ham United waxaa la sheegay dabcan inay diyaar u tahay inay gacanta ku soo dhigto ninka lagu magacaabo James Tarkowski oo daafaca kaga dheelay kooxda Burnley ayuu ku qaadanaya 27 milyan oo pound 27 jirkaan sida dasan ay soo daabacayso sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka kooxda Liverpool wiilkeeda garbaha ka duulashay Ojo oo 23 jir waxay amaah ku siinayeen kooxda Cardiff City sida Liverpool ay soo daabacday dhinaca kale gudaha Ingiriiska sheekooyinka jira waxaa qayb ka kooxda Liverpool waxay rabaan markii ay Gini Wijnaldum ka iibiyaan kooxda kubadda cagta Barcelona kadib inay soo qaataan Thiago Alcantara macallin Klopp wuxuu kalsooni ku qabaa inta laga gaaro 6 October in kooxdiisa loo keeni doono Ismail Sarr iyo ninka lagu magacaabo Thiago Alcantara sida Liverpool ay soo daabacayso waana labada saxiix u baahan macallinkan si uu weerarka iyo qadka dhexe kooxda Liverpool u xoojiyo soo kale sheekooyin gudaha
ingiriiska ka jira waxaa qaybka Oliver Giroud wuxuu fariin u diray ninka lagu magacaabo Timo Werner wuxuu u sheegay kooxda Chelsea inuu kusoo dhaweynayo laakiin uusan ka cabsanin ciyaaryahankan Faransiiskan wuxuu leeyahay booska iyo kooxda Blues waa lama taabtaan oo wuxuu leeyahay macna Frank Lampard waa isla hadalnay wuxuuna ii ballan qaaday qofkii kooxda bandhig wanaagsan sameeyay inuu ciyaari doono Giroud wuxuu leeyahay marka Tammy Abraham iyo Timo Werner iyo aniga kooxda inaan wada joogno diyaaran u ahay tartan aan galno taasina wuxuu leeyahay tartankaas anigana dana ii tahay Timo Werner iyo Abrahamna dana u tahay kooxdana dan weyn ugu jirto ka dhawaajiyo oo waxa suurtagal u leeyahay Premier League inaan kooxda u qaadno maadaama saddexley weerar kala duwan aan nahay oo siyaabo kala duwan kooxda looga faa'iideysan karo daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan tagno gudaha Talyaaniga waxaan fiilin doonaa ciwaanada kala duwan ee soo baxayo jaraa'idada Talyaaniga markii aan fiilin jaraa'idka caanka La Gazzetta dello Sportivo waxay coverka siiyeen operation ama howlgalka u wada macalinka lagu magacaabo Antonio Conte maadaama uu soo qaadanayo N'Golo Kante iyo Arturo Vidal La Gazzetta dello Sportivo waxay leeyihiin Vidal si bilaash ku imaanaya kooxda Inter Milan laakiin N'Golo Kante Inter waxay ugu talagaleen inay ku soo qaataan 50 milyan oo euro suuqana waxaa leeyahay suuqa Inter Milan ee doonaysa inay isku xoojiyaan si ay u soo idleen awoodda horyaal ku haysta kooxda Juventus dhinaca kale La Gazzetta dello Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Luis Suarez oo ay leeyihiin Juventus ku soo fool leeyahay laakiin ciyaaryahankan waxay leeyihiin baasaboor Talyaani u dalbaday si baasaboor Talyaani u helan waxaa laga qaadanaa imtixaan luqadda Talyaaniga ah haddii luqadaas ku guuleysto baasaboor Talyaani heli doona inkastoo Suarez option kan loo haysto ku aadan inuu dalbado baasaboor Spanish ah maadaama 6 sano gudaha Spain ku noolaay si uu u helo dabcan baasaboor Spanish waxa ka xigta kaliya dalbasho toddobaad sugan doona marka waxa leeyahay Juventus Suarez heshiiskiisa kuma dhawaaqi doonto ilaa uu ka helayo baasaboor Talyaani ah ama uu ka helayo baasaboor dabcan Spanish ah si uu u noqdo ciyaaryahan midowga Yurub ka tirsan oo aan kooxdan culays badan ku keeni karin dhinaca kale Corriere dello Sportivo markii aan fiilin waxay leeyihiin caawa Talyaaniga waxa waajib ku inay guuleystaan kulanka adag oo ay Holland kula ciyaari doonaan magaalada Amsterdam sadarteed macallin Roberto Mancini wuxuu wakiishay Thierry Immobile oo gool-dhalinta Yurub oo idil qaaday iyo soo kale Italian Serie A inuu hogaamiyo weerarka xulka Talyaaniga ah soo kale xulkan waxa lagu soo bilaabi doonaa caawa Nicolo Zaniolo oo asigana weerar ka ciyaari doona Mancini wuxuu leeyahay caawa inaan badinaa haddii kale wuxuu leeyahay UEFA Nations League hamiga aan ka qabnay gabi ahaan buu baabi'i doonaa dhinaca kale Corriere dello Sportivo waxay leeyihiin Inter Milan maanta waxay soo bandhigi doontaa Kolarov oo Roma ka soo qaateen silmadan waxay ku dhawaaqi doonaan Arturo Vidal oo ay kooxda Barcelona si bilaash kaga soo qaateen soo kale sheekooyin kale soo daabaceen haddii aan fiirino Corriere dello Sportivo waxaa qayb ka ah kooxda Lazio iyo daaficida way araga Francesco Carbo way isku dhaceen ciyaaryahankan wuxuu leeyahay contract cusub ma siixi doono waxayna u badan tahay kooxda Lazio gacanteeda inuu ka baxsan doono ciyaaryahanka lagu magacaabo Acerbi ama Acerbi dhinaca kale kooxda Atlanta hogaamiyada Alejandro Babu Gomes kabtan waxaa la sheegay dhankaas Sacuudi Carabiya dalab waali inuu ka helay waliba kooxda Atlanta waxaa loo bandhigay inay qaataan 15 milyan oo euro si ay dabcan u soo fasaxaan Alejandro Babu Gomes asigana wuxuu ka heli doonaa kooxda Sacuudi Carabiya Al Nassr 3 sano contract ah sanad kastana wuxuu qaadan doonaa 5 milyan oo euro oo nadiif ah dhinaca kale Tutti Sportivo markii aan fiirino waxay leeyihiin Suarez imaatankiisa waxay ku xiran tahay baasaboor inuu helo imtixaan luqadda Talyaaniga u gali doona haddii luqadda Talyaaniga ku baasan baasaboorka waa la siin doonaa maadaama xaaskiisa ay dabcan Talyaani tahay haddii taasi uu sameyn waayna baasaboor Spanish uu dalban doonaa sadarteed waxay leeyihiin Suarez kooxda Barcelona uu macsalaamin doonaa toddobaadkan gudaheed haddii uu labadaas tilaabo qaado baasaboor ku helana wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan Juventus ka tirsan dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen haddii aan fiirino Tutti Sportivo ciwaan ay kaga hadlayaan Talyaaniga oo ay leeyihiin caawa waxaa waajib ku inay guuleystaan kulanka ay wajahayaan Holland ayadoo dabcan uu wakiil noqon doono Thierry Immobile weerarka hogaamin doono soo kale tan Jorginho iyo Jellini iyo Zaniolo iyo Moussa Kean waxaa lagu wadaa shaxda koowaad inay soo galaan Mancini wuxuu rabaa caaw inuu guuleysto si dabcan guusha ay gaareen kaga caawiso Talyaaniga inay loolanka UEFA Nations League qayb ka ahaadaan si ay ugu soo baxaan semifinalaha ugu dambeyntii sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah Paolo Maldini wuxuu ku faraxsan yahay wiilkiisa ninka lagu magacaabo Daniele Maldini toddobaadkan bandhig uu sameeyay kulamadii saaxiibtinimo Milan ciyaareen wuxuu leeyahay waxaan kalsooni ku qabaa wiilkayga Daniele Maldini inuu sii wadi doono magaca Real Maldini ee qoys ahaan ama dhaxal ahaan Milan ku leeyihiin maadaama Cesar Maldini oo Paolo Maldini ah biis ah kooxda guul weyn uu la gaaray Paolo iska baday taariikhda uu la qaatay haatan wuxuu leeyahay Daniele Maldini kaga fadhinaa magaceen Real Maldini ahaan inuu sii wado kooxdana guul u gaarsiin marka waxaa la rajaynayaa xilli ciyaareedkan cusub Daniele Maldini inuu kaalintiisa qaadan doono marba haddii kulamada saaxiibtinimo bandhig heer sare u sameeyay daawadayaasha qiimo badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo sidoo kale qodobada sports ugu dambeeyay intaas aan ku soo ilaalinaa oo ku mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.